gudoomiyaha degmada Ballimataan Aadan Cabdullaahi Maxamed iyo xogayaha degmadaasi Baasha Qaybdiid ayaa maanta waxa ay u kurgaleen xaaladda abaaraha bulshada ku nool deegaamada hoos yimaada degmada Ballimataan iyo sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka reer guuraaga ah ee jiidahaasi ku dhaqan. qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka ku nool deegaamada Uwaala Bari iyo masaajidka oo hoos yimaada degmada Ballimataan ayaa waxa ay telefishinka qaranka Soomaaliland uga warameen sida ay abaaruhu u saameeyeen iyo guud ahaan noloshooda iyaga oo baaq taageero dalab iyo caawimo isugu jira u dirsaday xukuumadda Soomaaliland gudida abaaraha iyo qurba joogta deegaankaasi ka soo jeeda. dadkaasi oo arrimaha ka hadlaya waxa ka mid ahaa hadaladoodii codsanaynaa baadka xoolaha iyo quudka dadka iyo biyaha intaba in looga gurmado oo degdega oo xoolaha iyagu waa aragtaan nalagama iibsanayo macal qaloodinoo ma galayaan iibnoo ma galayaan qaloodinoo ma galayaan ma yacnihii kulaylkuma abaartuma naga keenaye horta dadkoo dhan ilaahay unbaa ka saari kara ummaddan meesha degan oo dhan ummadda dhulka joogto dhan ilaahay baa ka saari kara maxaanu san leenahay bal annagana haddaanu nahay Uwaale iyo Uwaala Bari ilaa reer masaajid iyo meegaagaha ilaa Halle waa inta isku xidhan waa inta waqtigu aad u haya waa inta xooli ka dhamaadeen intaaba halla maalinkan maanta waxa loo qabto wixii loo qaban karay haddii aan la yiraahdo taawiida taageeraha loo fidiyo shaah gurigana shaah saaka waxa ku karsada waa marka dabadeedna biyana caynkaasaan ka nahay baadna saaka hadalkiisa jooji waa ka ibsaleeyo xasiisan wax la cunana hadalkeeda jooji biyo hadalkiisa jooji kolka dabadeedna waa ka waxa weeyaan abaartu waa abaar aad u ballaaran mid kale waxaan la qabnaa Soomaaliland oo dhan bay abaarta la qabnaa waxa weeyaan in muddo imika 8 bilood oo wadankan roobka muudi in xoolihii abaarta intii kala hore ka soo hadhay ka bacdi imikana waa idinkaas oo sawirtana waa arkaysaa in taamarka waxaanu taageernaa xusbida kulmiye ayaan taageernaa tadarteed waxaanu doonaynaa inay dawladdu hoos noo eegto arrimahayaga hoos u eegto sidoo kale caafimaad haddii la yiraahdo waxaan ku caafimaad ma lihin waxaan ku beeraha oo kale macluumaad fara badan ay bixiso miidiyaha ka maqla anaga meesheeda wali looma keenin marka saasoo kale waxaan doonaynaa in arrimahayaga hoos loo eego haddii la yiraahdo siiba xusbiga talada dalka haya ee kulmiye uu hoos noo sii eegaban doonin meesha abaartu sanadka ma ilaa kal hore weynahays adduunku wadaga arkayo way iska barakashay waxaan laba lahayn waxba kama joogaan adii ilaahay si noolayntiina kolka dadkan waxay u baahan yihiin haday tay gudidan abaaraha hadii ay tahay yacni ma garanaysaa qolada qaranka caawimeen la soo gaaro dadkan ay u baahan yihiin waa Mawlid Maxamed Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Ballimataan waxa weeyaan meeshan Uwaale ayaa la yiraahdaa Uwaale 9 xafood weey meel leexsan buu ku jiraa wadada cadun bay gaayid ku yaacaan dadkii wadankan yaalay intay hawdu guureen oo xooli xagga oo la guureen ayuu nin walba wuxuu la soo noqday yaro tobaneeyna fooda jambogo maanta aan laga iibsanayn intina imaka waxba kama sii noolayntiina kolka dadkan waxay u baahan yihiin haday tay gudidan abaaraha hadii ay tahay yacni ma garanaysaa qolada qaranka caawimeen la soo gaaro dadkan ay u baahan yihiin waa Mawlid Maxamed Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Ballimataan